waxaa maanta magaalada Mandheera soo gaadhay Aadan Maxamed Cabdallah oo ku magac dheer Aadan Jeri isagoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa oo uu ololeynayo inuu tartamo xilka baraasibnimada ee dowladda ismaamulka Mandheera ee doorashada dabiiqada sanadkan ka dhici doonta dalkaasi Kenya. Aadan Maxamed Jeri ayaa booqashadiisa siyaasadeed waxa ku weheliyay madax kale oo isku dhaf ah oo iyaguna ku daba safan Aadan Maxamed Jeri waxaana ay khudbad ka jeediyeen fagaaraha xarunta Baasbag halkaasi oo ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid ah reer Mandheera waxayna siyaasiyiintan u ololeynayaan in doorashada sanadkan gaafanimada loo doorto Aadan Maxamed Jeri. Aadan Maxamed Jeri aanu keenay inaad gobolka Mandheera aad noqdo 2022 nala qaadeen waxaan rabnaa nin aan tuugahayn xoolaha shacabka aan dhacaynin inaan maamulka Mandheera aan u dhiibana aan rabnaa arrimaha qabiilka waa ku rafaadnay ninkan waxaa la soo baxday ummadda Mandheera ku nool oo Soomaali weyn waxaan ii sheegi rabaa haddaas Aadan Maxamed Jeri Mandheera wax ka bedeli waayo nin damba oo Mandheera wax ka bedeli kara male waziri mkono kwanza waxaa ugu dambeyntii fagaaraha Baasbag ka hadlay musharaxa gaafanaha Mandheera Aadan Maxamed Jeri waxaana hadalkiisa ka mid ahaa sidatan: Mandheera waa cidayni waa meeshayni waxaan soo qabtay oo sagaal boqol oo bilyan ayaa soo maamuli jiray lacagtan 10 bilyan Mandheera shida sisi tunataka kufanya kazi pamoja mambo ya daraja daitaha wanso aragnay anaha managing director private sector anaha kwa hivyo mambo hiyo hadi ni daraja doon oo shaqo soo raadsana meehi waxaad ogaatiin idinkaan idin shaqayna Aadan waxaa inta la og yahay uu tartanka xilka gaafanimada ee Mandheera kula jira 4 qof oo kale waxaana go'aanka kama dambaysta ah qaadan doona shacabka countiga Mandheera oo qof iyaga u qalma xilkaasi u dhiiban doona. Ibrahim Happy, Radio Midnimo, Mandheera.